kismaayo wadadeedaas mar anagoo marayna sidaas oo kaleeto iyo gaari xogaa gaarigii baa yara liicay markaas sheekhoyayow markaas uu sheekhyada naga daa markaa mar dhow weeyo anigu wax fahamsanayo markaa jaamacadii dhigto wariya war sheekha sheegaysa naga daa ilaaha baabuurka nabad gelinaye ilaahayow ma tiraay markaas bad awliyaa diidaysa marka hore waxa laga bilaabay awliyaa diidaysa war awliyaa diidi ma in awliyaa ma waxa awliyaa marka dambe way marka hore waa kala duwanahay marka hore aan wali wax fahmin baa marka mar dambe wax fahmo nin weynahay wax iska dhicin karo adeer waxa yeeli anagu baryamayna waxyaalaha aad u yeedhanaysa ilaaha kaligiisa baryaynaaye markaas uu yiri sheekh abdullaahi qabrigiisi xaramkiisi buu yiri yaa naga horeeya baabuur wadow hadaa daafiso gaariga waa gadoomaya wariya war gaarigan ilaah baa gadiye ama nooleeye sheekhyana u gadooy mahay gaariga noo wad dadkii baa laba saf noqday mid baa igu soo baxsaday oo yiri dadweynaha khilaafsan tahay wax cusub dadka gelinaysaa anigu dawladda waxa aad wada raali kama aha oo kan weeyo oo nin waxaad u egtahay maartay wax cusub wada oo dadka raba inuu ka haysto oo muddo badan ba hadda nala soo hadlaysay oo aad naga dhaadhicinaysay arrimaha dawladdu ma ogal ka baxadalka jooji markaas waxaan yeeli dadka anigu dawladda waxaan maqlaayay oo anigu kacanadaas kama warqabo oo kama shaqeeyay laakiin waxa la igu lahaa dadka ha ka kaceen oo ha shaqaysteen oo beerahooda ha fashiyeen oo ha isla bireen baan maqlaayay adigu waxaad leedahay qubuuraha dul fadhiistay oo awliya Allah idin ha ku hayeen meesha hadda warsadeen markaas maya de shaadigu dawladda dhulka dawladda leh ummadda dawladda iyo u talisa adigu waxaad iska dhigaysan arrinta u taliya waxaan yeeriyo dawladda aad sheegaysa igala bax khamiiska oo kala qabaa iska wadaada baan basaas ma iska akaay badan markaas aan wariya adigu dawladda waa wada tagi doonaa bal hada waxaad sheegaysaa ku arki doonaa hada sida aad sheegaysaa ay rabto dawladdu iyo sidaan anigu rabo anigu dadku inay ka kacaan qubuuraha ka dul kacaan ilaahooda aaminaano beerahooda fashaano geelooda raacdaan baan anigu ugu yeeraya qabri waxaye iyo awliya wax ka og iyo waxaan waxba kama jiraan markaas uu dawladda maxaad leedahay ka qabtaa gabdhaha dirica qabo xafiisaha ka shaqeynaya wali way wadaay wuxuu rabaa meel jaranjaraha oo ka dhaco inuu iga helo markaas gabdhaha sheegaysan uma baarag warba kama hayo laakiin gabadh qaadan karta diric intay qaadato xafiis dawladeed oo ummadoo dhan leeyihiin soo fariisan kara ma jiro marayna orin dawladda xayaa ka taado adigu markiiba ninkii yasta dib u degay kolkuu arkay inaan nin baqahay ahayn ana markaas waxa xoog baa iskaga socdaayo waxaan isleeyahay oo yaan jilaac laga helin oo ninkani dadkuna waa baqaya dadku shuuciyadu baasha la yiraahdo kacanimada iyo shuucinimadu waa wax adag oo dadka bedesho oo dadku khoof buu ku wada jiraa oo nin walba la iska eegaya nin walba waxa leeyahay ama balaaye yahay marka haddii lagu yaqaanaa ku darane meesha laga aqoonisa doonta ka yeelo kaniisadihii marka hadda dib ugu noqono kaniisadihii faraha badnaa oo ka samaysnay gobolada webiyada iyo agagaarkooda u badnaa iyo xamar iyo meel walba baydhabo iyo jawhar iyo kismaayo iyo meel walba kaniisadihii way ku yaaleen kaniisadahaasi wax ay soo saareen oo u soo saareen nimankii dhistay ma jirin halkaas iyadana muddadaas soo socotay waxa lagu abuuray dadka cudur la yiraahdo tasawuf oo la leeyahay awliya tahay hatta intay markii dambe ka gaareen barihii dhaweyd oo inta saxaabadu oo arnada adduunka imanin heer ay gaareen kitaab tadkiratu ahl yaqin la yiraahdo la soo baxeen waxay leeyihiin karaamaat sheekh hebel ومن كراماته وعنوان كدغنيا انه لم يرى محل صلاته اكثر من 30 سنه شيخا وليغا لو شيغيو صدو سنه wax ka badan isagoo tukanaya lama arag bayna kamitaay ومن كراماته warin kala qab waxa sheegaysay wax isla ma aha awliyanimada seeweeye wuxuu leeyahay miftaaxul jannati biyadi وبعد موتي بيدي مريدي مفتاح الجنة وأنا بسكب على الجنة أنا قاعد كوينا هذا أنا أقول أنت مريد كي جا بحال كأني وأن خليفة كي جا قاعد كمان دوني كاكا دونت الجنة دي حوليه هاي مركز وحكوها الله وحيال الله ياب له ووليه هاي مالين أريجو سعون هايو مالها ور شيخ مال اللي راهو باديه إذا أنا وحرت إذا أنا وطر شيخ مركز مجلسي هل كأن سعونيو يا وحا قبل يرو تدبشرها oo waxara la soo luntay baa naga yaan meeshii ka helnay oo xirtu qabatay markii gabadhii la ay keenay mise gabadhu waa hooyaday haye ninka dhan wuxuu aaminsan yahay
tanaasukh arwaax wax la yidhaaho oo sida shuuciyada qabta qofka hadduu dhinto inuu soo baxayo beri dhalanayo marka wuxuu leeyahay aniga cimrigayga markaas wuxuu yidhi 80 sanaan jiraa gabadhana 7 sanay jirtaa waana hooyaday war waxa kale oo oo see ku dhalaysaa wuxuu ku fasiray markii dambe hooyaday anigu hadda ninkaas deetanka gaaray baan waqti badan ima hadhin haddaan dhinto aabahay baa gabadhan oo inaan guursan doona way dhalaysaa aniga ay dhalaysaa aqeeda diintaas xagee way lagu haysaa mabuudiba waxaasa marka ninkii ahaa talyaani abuuro inooga tegey qubuurihii waa kuwa haddaba meelo badan ka jira meelo badanna laga yaabo inay laga guuray oo hadda laga danaysto inay waxba dili karin inay waxba ahayn iyo lisoo ogaado marka khalkhalkii macnaa dadkan Soomaalida diintii way qaadatay oo macnaa tawxiidkii way qiraan walaakiin intii ka horeysay isticmaalka waxay iska ahaayeen dad iska oo diin aan aqoonin oo jahala walaakiin muslim magacooda la yiraahdo muslim ilaahna midnimadiisa waa qirayeen la ilaaha illa allah waa qirayeen waxa kale fasahaadka oo iska jiray isdhaca iyo isdilka aanu ma jira oo la kari ilaahay dadkii kolkii diin oo dhanba ay barteen waa geel la dhaca iyo waxa isku haysteen sanadka meel ay kuwa qabiilo isku yeeleen baa annagu wadaada iyo qolo maamul ay isku tagnay inaan dhaxdhaxadino 5 sano isdilaayay dhowr iyo 7 nin iska dilay markaan u tagnay baa yahay dadka dhintay waa imisa 7 haye xoolaha la qaadayna oo yaa xoolaha raba marba 200 halaad reer hebel laga qaadayo habeenkii dambe waxa boolida mar rabna naga kaxeeyo kuwii soo qaado halkooda lagu soo celiyay ana la hadla waxa wariyaaya in awliyaa abayaashani awiyada geel dhac ka dhaxeeyay oo xoolo doon la isku leeynayay wax cad bay ahayd walaakiin waxan hadda aad isku leenaysaan aan geel la doonaynin qof naftiisa la doonayo kuwii hore iyagu mabda bay biraahayeen waxay dhahayn anigu waa baahanahay geel ninka haysta ayaa ka qaadahaya oo xoog uga qaadanay mar haddaan ka xoog badnahay walaakiin adigu maxaa haddaad xoolo doonaynin naftan maxay ku tari ilaa ka geel doonay geeli oo ka haysayba adigu waxa rabta maxay taad helayso badiilka ah kii hore naftiisa wuxuu horeeyay inuu geel hele wallahi ma naqaano taanka reebel baa naga dilay annagana waa dilayna waa jaahiligi asal oo iska socda oo aan ka baxayni dadkii la yaab leh oo ka socda mandaqo kasta hadda Soomaaliya meel aan maanta la isku dilaynin oo reebel isdilaynin ama laba isku qoys aba